duqaan aan haba u ahayn ku talagal goobta iyo goobta howlgalla aan kadis ahayn diyaargarow iyo duulaan cayiman ila basaaso ehel u ah shaqada ayaa isku si uga socda gudaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka intii u dhaxaysay 26 May 2022 ilaa 4 Abriil 2024 hadda waa muddaxileedkiisii koowaad Mahad Maxamed Salaad konteenar badeec ahaan u degi jira balse ahaa agabyo argagixisada keensato khawaarij shaqaale ahaan loo dhoofin jiray lacaga isku mari jira koonada shakhsiyaad iyo sharikado ku safah burcadiimeedka maanta ayaa lagu wada xariiqay sumad cas oo ciqaab sharciyeed u dheertahay jihaynta dadka ka dhex saaridda goobaha cibaadada culumayso ku fasira khawaarijta xanibaadda been abuurka sharwadayaasha ay u isticmaalaan baraha bulshada ay u maareysay hay'adda xilligaasi si u dan ah diinta dadka iyo dalka waxaa meesha laga saaray unugyo argagixiso ahaa oo isbiday maamulidda caasimadda si dadban iyo si toos ah waxaa xididada loo siibo wakiilada argagixisada ee ku dhex tarmayay qeybaha dawladda ma haysan sharciyad hay'adda isaga ka hor kalsoonida howlwadeennada oo hadba raacay hirarka siyaasadeed kuna xuquuq iyo xaqsiin beela ayuu meesha ka saaray 53 sano kadib waxa uu saaxiibadiisa golayaasha dawladda ee fulinta iyo sharci dejinta ku qanciyay meelmarinta sharciga hay'adda xeer nidaamiyaha lagu kala xadeeyo howl maalmeedka hay'adda iyo sharciga la dagaalanka argagixisada waxaa ogolaaday oo ansixiyay dhammaan guulahaasi iyo ka badanba waxa ay u ahaayeen Mahad Maxamed Salaad dhaxal u gastay dagaalka qaranka koodii bishan ayay mar kale Mahad Maxamed Salaad agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka u magacaabeen golaha wasiirada waxaana looga fadhiyaa in ka badan intii hore Mahad Samareeb ayuu ku dhashay 80kii waxa uu waxbarashada ilaa heerka labaad iyo asaaskeedaba ku qaatay wadamada Soomaaliya, Kenya iyo Masar sanadihii 2016 ayay u soo dirsadeen dadkiisa ka mid noqoshada golaha shacabka waxa uu soo noqday wasiir ku xigeenkii arrimaha dibadda iyo wasiiru dawlihii madaxtooyada maanta ayuu mar kale dib ula wareegay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka